Somaliland عديدي معها الليو لما تجان معها طليق عدف يا ذمتيدا أصبيو ملحيو كلونكا عوديو بيا ذاك وعانا Somaliland عديدي معها الليو لما تجان معها طليق عدف يا ذمتيدا أصبيو ملحيو كلونكا عوديو بيا ذاك وعانا ذهب كتيفو معدة وراعي الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن dadka qiimaha badan leh ee hawada naga dhageysanayo meel kasto aan nagala socotaanba ku soo dhawaada barnaamijkii waayaha qurbaha waxaanu ku casuunaa ashqaas muwaadiniin reer Soomaaliland oo muddo qurbaha ku maqnaa kana warrami kara duruufaha dhaqan-dhaqaale qurbaha iyo dadku sida ay ugu nool yihiin iyo fikradaha ku aadan horumarinta wadankooda ee qofka muwaadinka wadankiisa uu kula soo noqdo toddobaadkan barnaamijka waayaha qurbaha waxaa noogu martiyaa xildhibaan Ifraax Cali Kirix oo xildhibaanad ka tirsan golaha deegaanka ee wadanka Sweden magaalo kamid ah xildhibaanku muddo ayay ku nooleed wadanka oo ay ka qayb qaadatay maamulka kala duwan ee dhinaca waxbarashada iyo golaha deegaanka ee wadankaasi ee wadankeeda hooyo ay ku soo laabatay iyadoo ay weeriyeen koox suxufiyiin oo xagga ka soo raacday oo doonaysa in ay xogta wadanka Ifraax wax ka ogaadaan haddaba waxaan doonayaa in Ifraax markii hore aan weydiiyo qurbaha goormay tagtay sifaha ay u tagtay muxuu ahaa bal in sawir guud ay naga siiso السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدباني نقول مهد علنا يا رنتي إن الشانس قالي هذا سيسان وهذه بس ودويسان استوديو هنا إلهي بنا مهدا سكله سبحانه وتعالى إن مرلبات مقعي جواد شيخ تبان ملينا يا أو يفرح على كره وحن كل شيء رنتي بقالة هرجيسة هل كنا إنه هذا كنا أول هاي إن وحن تجي سويدن سنة كمركوها كون سجال بقولها فريسة كاشفي تاسي أو مركا عن كنا ولا رنتي مدة ترى ديرو عن كو قياس كريستية تون سنة دور waxyaabooyinka hadaba qurbahan kala kulmay qurbaha marka aad tagtid runtii iska hawla badan yahay wax walba ahaatee anigu hadii jeer waxaan ku sufeeyaa wadankayga hooyo waa muraayad la isku daawado oo kasta sad u egtahay marka hadaba wadanka hooyo ee aan hadda joogo runtii waxa ay noqotay inaan u yahay jirida qofka oo yahay bicnaha waxa aad u qiimo badan oo hadda ku soo koobi kari kalmad hadaba aniga oo runtii chance fara badan helay oo aan ardayd ka noqday wadankii luqadda ay ugu adkaato walaalaan luqadda ma oran karo perfect baan ku ahayo si fiican baan wada qaana laakiin waxaan isku dayaa haddana dadku inay badan fahmaan doodaha waan ka qayb qaataa oo runtii kama baqdo kuma waabto hadalka macnaha sidaan hadaba siyaasadda ugu soo beeray waxay ahayd horta xisbigayga waxaan ku beeray markuu ahaa sanadka 2015 labadii kun iyo shantii markaan ku beeray runtii ma ahan xubin aad u firfircoon labadii kun iyo toddobadii markay ahayd ayaan xubin aad u firfircoon ka mid noqday taasi oo runtii ahayd waxaan lahayn iskool baan dhiganayay markii hore runtii waan iska shaqaynayay waxbarashadeeda ma dhammaystirin markii dambe waxaan sidii Hargeysa ku soo noqday Hargeysa markaan ku soo noqday 2006 ayaa waxaan arkay reerihii iyo dadkii si fiican u nool waa in nolosha waxaan ka tagay tool burbursan yahay waxaan ka tagay runtii tii inamadayda ay seexdaan buul yar ana kuna seexnaa maqsiyar nolosha aad u rafaad lagu jiray waqtigeena waan ka tagay waliba si markaan ka hadlay reerkayga familygayga markii aan soo noqday waxaan arkay dadkii isbedelay qof walba bil sita odayro meesha fadhiyo oo daawanaya TV micnaha nolosha runtii aad iyo aad farxad ah baan ku soo noqday
kadib waxaan isiri waa inaad markaa wax hadda ku harsan inaad waxbarashadaadii sii wadatid waayo hadda reerkiina waxaad u malaynaysaa inay dee kaligood istaageen waxaan runtii dib u qaatay inaan waxbarashadii dib anu bilaabo anigoo bilaabaya inaan diyaar gareeyo wixii jaamacadan ku geli lahaa saan sheegayba 2005 baan ku biiray xisbiga laakiin ma ahan xubinka firfircoon markii aan ku biiray ayaa maalmaha kamid ah markaa soo noqday maalin markii dugsiga degdeg u bilaabay aan doonayay inaan waxa ku taageeran jaamacadda ku daro oday markaa noo ahaa maamul ayaa waxaanu dhici jirtay seminar samayn jirnay iskoolkayga maalinta waxa laga hadlayay markaa sinaanta aadamiga qofna muxuu taajir u noqdaa qofna muxuu gaajoodaa groupkii baa la kala qaybiyo leeyahay idinkuna xagga toddobayba meel fadhiista ama toona meel fadhiista wada xaajooda waxaad ka xaajootaan maxay dadku ay u noqdeen faqiir ay u noqdeen faqiirinta ugu badan Aasiya iyo Afrika markii dambe aan isku soo wada noqonay markaa aniga iyo markaa waxa ku jirnay inaan madowga markaa Eritrea ahayd aniguna Soomaaliyeed baan ahaa inantii baa markaa waxay tiri waxaan isku afkaranay dhalinyaradii markaa anaka la fadhiday waxay yiraahdeen Afrika waa wadan aad u fiican oo micnaha cadceeda oo wax laga beeran karo caawinimo micnaha dadku ay halka wax ka soo saaran karaan laakiin maskaxdooda gaaban anagu fikradii kama hor iman waan ku raacno waxna waa run seemilaha aynu mudawin ka anakii marka semiira intan isku yara aan wada hadallaan ku semiira waa run oo siday maskaxdeenu u madowdahay aan ku soo noqonay galaaskii ayaa de group walba wixii uu soo sheegay ayaa soo galay ayuu la soo noqday markaa waxay tiri waxaan markaa isku afkaranay inay Afrika de ay beertaan si ay markaa micnaha ula soo baxaan raashinkana ay iibgeeyaan idin dhaqaalaha kalka ka soo gali karo wanaagsanaan karo ninkii beelle ee markaa noo ahaa maamul oo haddana aan nahay nin aad aan isku dhowno oo xisbigayga aan nahay dadka aad isku dhow qolada deegaanka aan wada fadhino oo markaa maamulka iskoolkayga ahaa baa markuu wada dhageystay qolooyinkeedu qofo meel ka hadlay ayaa wuxuu yiri intiina halka fadhida wuxuu yiri waa aniga marka laga reebo waxa tidii 6 arday sabab laha wuxuu yiri haddaba cunaynu ku haysanaa miiska markaas aan ku lahaa cunada aynu ku haysano miyaad xasuusataan ilmaha yar Afrika ku gaajoonaya ama ku dhimanaya sasa beelo weeg marka beelo runtii aad baan u aqaanaa xaaskiisu waxa weeyaan dhakhtarka ka shaqeysaa isagu master uu dhaafo waa PhD busita waa maamul school 3 caruur uu leeyahay 3 caruur waa academic ka gaajoonaya isagu maaha caruurtiisana ma daawanayso Sweden waa Swedish marka waxaan isiri waxa gaajoonaya wadadkayga anigu haddaan haysto maanta cunomiska caruur badan oo Soomaaliland aan gaajoonayso runtii waxay aad igu kaliftay markaa in active noqdo oo dhax kala qaado waxaan dareemay markaa runtii siyaasadana runtii waqti badan baa ku baxa inta qaadanaysid lacag horta runtii lagama helo magac baa laga helaa inta waqti kaaga baxaya badan markaa waxaan tusay markaa waxaan inaan xiiseynayo kadib isla markii waxay i dhiibeen inaan ka noqdo xubin kamid ah guurtida iskuulada sare mar labaad haddana waxay i dhiibeen 2 xaafadood inaan gudoomiye ka noqdo waxaan waxay oo kuwan markaa guddiga kugula jira wada jaamiciin weeyaan adiguna wali jaamacad ma galin maxay ku noqotay inay micnaha ku aaminaan runtii aad baan ugu farxay laakiin kuma oran karo waa dadaalayo micnaha waxaan hay qof aqoon laho waxaan hay qof cilmi laho qof micnaha dadaalkayga meesha ay soo gaarsiiyeen nafa ma oran karo laakiin waxaan oran karaa chance baan helay oo dadkiiba albaabada ii furay oo ii baneeyay marka runtii aad baan ugu farxay xisbigeygana runtii aad baan ugu farxaa mar walba taasa markaa ii fududeysay inaan soo galo imika waxaan isku hayaa 2 xil 3 xil baan isku hayaa xil waxa weeyaan qolada deegaanka xil waxa weeyaan qolada bulshada xil waxa weeyaan xuquuqda dumarka oo runtii aan ilaa xad aan ku jiro 13 gobol baa la ii doortay inaan ka mid noqdo guddideeda ifraax waxaad ka dhawaajisay siyaasadda waddanka Sweden iyo doorka aad ka soo qaadatay marxaladii badneed aad soo martay ma jiraan qorshayaal aad uga faa'iideynayso waaya aragnimadii golaha deegaanka Sweden ee golaha deegaanka Somaliland ma isleedahay khibrad bad ku kordhin kartaa wax filayo iyagu inay ku kordhin karaan xitaa anu waxaan ku kordhin karaa horta marka laga hadlo deegaanka horta wali ma tagin oo maanta aanu balansanayno maanta dib u yara dhigano birhaan balansanay marka runtii aan dhageysto siyaabaha u shaqeeyaan
horta aad baan uga xumahayo dee dumar kuma jiro oo taa kale mar walba waan ka hadlayaa meesha oo dee dumarka hadiya jeer dameer bay ka dhigataan ogsoonta dameerkuna faa'iido badan buu leeyahay idinku libax baad ku sheegtaan macnaha waxaan ka wadaa macnaha hadiya jeer dumarku meelo badan ma haystaan ma muuqdaan marka qolada deegaanka runtii kuma jiraan wax dumar ay waan aad baan uga xumahay inay taasi dhacdo oo doo macnaha dad isku mid mar walba meesha fadhiyaan oo anaka 4 sanadood doorashada markay dhacdo xitaa xisbiga dadkii kamid ahaa la saaraa oo dad cusub la soo galiyaa ama qof ku yara daalo ku bartaba macnaha qofka hadan la soo galiyaa marka runtii aad baan u jeclaan lahaa inaan dad badan oo aan ku arko runtii at least 5 dumar ama 6 dumar ama 10 dumar qolada deegaanka runtii laakiin sidan idinku baad ogsoontihiin kuma jiraan runtii wax dumar marka horta dee waan ku kordhin karaa baan filayaa dee siyaabahan u shaqeynaa waxay yihiin baaba macnaha faa'iido badan noqonaysa anigoo waliba aadan u jecelahay inay xiriir sameeyaan kuwan xaggan jooga iyo qoladan deegaanka halkan degan iyo qolada deegaanka ee Yoonshabin oo aan soo weydiiyo oo la xiriirsin doono Britole ama maayarka ku-xigeenka ninka gudoomiyaha noo ah ee noo fadhiya maxaa la yiraahdaa deegaanka xaggaas ifraax waynu u soo noqon doonaa bal duruufaha dhaqan-dhaqaale dhinaca dimuqraadiyadda Somaliland oo fikirkaad ka haysato haddii golaha deegaanka aad ka tirsan tahay dumarku ku badan yihiin xaggan waynu gorfayn doonaa dhaqanka Somaliland iyo afkaarta uu aaminsan yahay walow aad xog badan ka hayso waxaan u soo noqon doonaa ifraax oo gabadh siyaasiyada oo Swedisha oo haddana Somalilandera marka laga yimaado mucaawinooyinka kala duwan maadaama sheekadadii hore ay ku jirtay in aad xoog ku qaadateen oo duruus ku qaadateen bal fiqiirnimada iyo Afrika maalmahan wad joogtay gudaha Somaliland waliba caasimadda maxaa kaaga kordhayaas leedahay bal dadka danyarta wad ku kordhin kartaa horta runtii aqoonigu ma laabsaneen wadankayga oo dawaama ku dhashay waana la xiriiraa hadiya jeer oo waan ogahay laakiin aniga runtii waxa aqoon aan u kordhinayay inay labadan hablood ee Swedishka ila socdaan ay wax arkaan indhuhu ay ka taabsadaan taasi ay arkeen runtii inay jirtaan macnaha kala sareyn inay jiraan dad macnaha aad u lacag badan iyo dad aad u hooseeya imika taasoo kale anaka Sweden oo kale ma jirto waxay hadiya jeer isku dayaan dadku inay sinaadaan oo qofkani at least oo helo meel uu galo wuxuu cuno wuxuu xidho iyo wuxuu cabo xitaa kaana shaqaysan oo dee haysto magaranaysa fursada marka runtii way la yaabeen waxay ku yiraahdeen oo tan islaanta yar ee buul gashaa islaantan gashaa maanta gidi su'aalay ku wareejiyay inta baabuurku socday meesha mareen marka runtii waa hablahan ila socday ee runtii journalistayaasha farxad bay tahay runtii inay arkaan dhalinta kacaanka oo kale runtii maxaa la yiraahdaa xarunta agoomaha kale runtii waanu booqanay inkastoo macnaha warwarna yara gelisay oo dee caruur yar oo hooyadooda iyo aabahood laga qaaday ay yihiin oo hooyo aabada maanta aan garanaynin haddana runtii farxad bayna geliso waxay farxad inoo gelisay waxa weeyaan inuu at least u tagno dee soo dhudhukano oo aanu ma garanaysaa aanu dee farxad la soo qaadano tusnayno macnaha aanu tixgelinayno oo ay iyaga laftigooda qiimo badan xagga ka leeyihiin ifraax haddii aynu ku noqono qurbaha iyo golaha deegaanka aad ka tirsanayd bal waxaad sawir yar naga siisaa si ay tusaalooyin ugu noqoto dhalinyaro fara badan oo doorashooyinka golaha deegaanka soo socda doonaya inay u tartamaan walow gabdhaba ay ku jiri karaan oo ay ka mid noqon karaan oo imika abaabulkeedii lagu jiro bal sideed u shaqaysaan golaha deegaan ahaan sideed u shirtaan magaalada aad maamushaan bilicdeeda nadaafadeena sideed uga qayb qaadataan horta walaal waxaanu leenahay dee xubno oo waxa jira macnaha wasan ku sheegay qolada dugsiyada sare waxa jira qolada guddi qaabilsan dugsiyada dhexe waxa jira guddi qaabilsan bulshada waxa jirta guddi qaabilsan dadka waaweyn waxa jirta guddi qaabilsan caruurta yar meel lagu hayo waxa qaabilsan guddi maxaa la yiraahdaa nadaafada qaabilsan waxa jira guddi qaabilsan maxaa la yiraahdaa cagafyada iyo sidii loo dhisi lahaa meeshan marka guddi walba wax bay qaabilsan tahay runtii laakiin mid baan ku yar ka gudisanayo anu runtii marka siyaasadda soo galay lacag ka qaado kumaan soo galin taa hadduu qof niyadiisa ku jiro lacag qaado macnaha ma soconayso imika waxaanu nahay 180 xilmaan baanu nahay runtii adigu marka la isku geeyo maca iyo 40 dheeraada waxay noqonayaan boqol iyo wax bay noqonayaan ayaanu ku fadhina qolada deegaanka
xusbi walba wuxuu leeyahay maayar haddaba maayarada iyo maayar ku-xigeenka ayuunbaa meel fadhiyo loogu hagaagaa annaga inteeda kale qof walba shaqo gaaru haystaa laakiin kala fadhiyada iyo go-aamadaanu gaadhayno waanu wada gaadhnaa marka waxa weeyaan taasi waxay ku tusaysaa qofkii inuuna ka dhigan maxaa la yidhaha business uuna ka dhigan micnaha lacag hel lacag haddaa istiraadiid ka hel waxaad noqonaysaa hadhow tole khiyaan inaad istiraadiid salaantan jagasi tana lacag ka yar ka qaado marka taasi runtii intii nagu jirto micnaha meel ma gaari karno laakiin qofku hadduu is yidhaahdo waayo anigu waxaan u arkaa marka kuleeyahay waa siyaasi qofkani siyaasigu waa xaq u diriraa had iyo jeer marka maadaama uu xaqi u dirirayo aan dee anigu waxaan aan arkayo markaan kuleeyahay tusaale ahaan kaaga soo qaaday ku arkay ninkan beela la yidhahdaa isaga iguma wadin anigu iga waday maadaama anaga caruurtayda gaajoonayso waxa weeyaan xaq u dirir baa tahay maadaama xaq u dirir tahay oo cadaaladii aad doonaysid inaad cadaalad ku dhaqmin micnaha aad ku dhacaqatid maxaa la yidhahdaa dadkii aad kala saartidood micnaha si toos ah aad micnaha u socotid waa inaanad ku fikirnaa lacag heshid aad ku fikirtaa waxaan fikrad inaad dadkana siisid si aad hadhow toole aad micnaha aad u caawin kartid ood hadli kartaa taas waynu qofka ku fikiraa laakiin inanka yar hadday soo diyaarinaya hadduu is odhanayo oo waan lacagaysanayaa wallahi reerkaygaan caawinaya ama ree hebel baan waxaa u dhicinayaa ma soconayso hadduuna markaa ku fikraynin siyaasadan waan wadanayaa siyaasadana waxaan doonayaa wixii aniga halkan iga jiray inaan banaanka soo dhigo oo aan u doodo ummadayda oona odhan micnaha kana hebela iyo kana hebela aan u doodo ummadayda oon rabo wixii khalkhaladeen arko inaan nadiifiyo ifraax cali kariix waxaan doonayaa horumarka ka jira waddankaad ku noolayd ee Sweden inta wanaagsan inaynu isla garanno oo aad ka soo qaadato oo waddankeena iyo dhaqankeena aynu ku dabaqno marka dhaqankeenii hore haddaynu u soo noqono awoowayaasheen ayeeyaasheen hooyadu nidaam gaar ah u noolayd gurigayada ka shaqeynaysay diiniyan marka laga hadlayo marka sidee aad isku waafajin kartaa dhaqanka Sweden ka jira iyo ka Somaliland marwanimadii iyo hooyanimadii bal ka waran runtii marka ka hadlo dumarka Swedish iyaga ka fiican dumarka Soomaalida marka runta ka hadla hada ayaan ka hadlaynin micnaha berbed waayo waxay ogoshay inay gabadh noqoto waxay noqoshaa ay ogashahay inay shaqaysan karto lacag dareemi karto waxa ay jeceshahay inay micnaha iyadii ninkeediba horumar gaari karaan markaan ka wado markaan inuu ka dib aynu ugu noqono hooyooyinkeenii hore ma haysan micnaha fursadan aynu ku haysano iskuulaynu haysanaa waxbarashaynu haysanaa mushaar kaliya laguma noolaan karo caruurtaadi maanta haddaad caruur aad leedahay inta doontid baad lahaa tidhi ee xaaskaaga shaqaynayso ood adiguna aad shaqaynaysid ilmahaaga nolol fiican buu ku noolaanaya marka taa horta in la isweydiiyaa fiican had iyo jeer waxaynu ka fikirnaa halka negatifeka waxa la yidhahdaa haddaad naagtu dee imika ay wax yeelato oo kale waxa laga yaabaa hadhow toolada inay micnaha ay noqoshayna kuma ansho laakiin runtii waa wax khaldan waayo labada qof marka ay dhaqaale haystaan noloshooduna runtii aad buu fiicnaataa taasana lagu aaminsanay laakiin naagnimada waan ogolahay anigu inuu hooyo noqdo naag noqdo odayga cunada kariyo sax ifraaxay duruufaha dhaqan dhaqaale qurbaha ayaa la oran karaa xugugaal baad u tahay oo inta badan nolosha qurbaha iyo qoysnimada haddaynu ku noqono tabashooyin baa imanaya inta badan oo kasoo yeedha qurbaha in hooyadii keliya ay ku noqotay ubadkii iyo gurigii ragguna ay loo tiriyo inta badan kuwa balwada ay la fogaato ifraax ahaan arrimaha ma dhex gashaa Soomaalidu xal ma ka gaadhaa inaad bal wax ka qabato wala horta marka laga hadlo qoysaska qof walba birfaday oo runtii ma jeclina taa dhex galo waayo qofka labadan qof ee bini'aadamka ah ee micnaha iyaga wax isku haystaan haddii xalin waayaan wax cid kale wax kale wax la kartaa jirto midda kale dhibaatada had iyo jeer timaadee labada qof ay isku qabsadaan ma oran karo rag baa khaldan mana oran karo naag baa khaldan kulli dhibaatadu labadooda dhexdooda ka timid waxay ka timid dad sana ku sheegeen micnaha muraayadii markay weynaan isku daawanayay dee had iyo jeer waxa ma garanaysaa inuu eegnahay maqsuud identity baa lumay qofkii shakhsiyadii qofka tahay marka waddanka ka tagtid waddanka kale tagtid cid ku miska xilisa in hooyada oo kale marka in joogto naya caanka hadalka ha oran saha u sheekaynin waxaad mooday sidii aan xalay aan dhashay markii aan xalay aan u tagay la sheekaysanay habeen hore ahayd baan malaynaya ha xalay sidii xalay aan dhashay bay iigu sheekaysay inaan micnaha aan hadalkayga dhageysto marka runtii taasi ma jirto dadku way mashquulsan yihiin subaxii ninka kacaya naagta kacaysa caruurtii bay geynaysaa iskoolkii way soo noqonaysaa waxay rabtaa ninkii inuu noqdo isaguna fadhiina uu dhinac hawshii kala qabto isaguna wuxuu ku leeyahay anigu ina hebel ahaayo bilkayga aad cuni jirto halkan aan ku keenay ba anigu toonaya inaan koob shaaha aan ku karkariyo
igala tag boodhanaya asxaabtayda intu keen marka ma oran karo runtii naag ba khaldan iyo nin ba khaldan ee waxa weeyaan waxa inaga luntay micnaha waxaanu nahay weyn marka ka tirsan wadakaaga ifraax waxaan doonayaa siyaasadda Soomaaliland iyo doorashooyinka golaha deegaanka oo la filayo inay nagu soo fooleeyeen maadaama aad taageersan tahay in haween badan ay maamulkii wadanka iyo golaha deegaanka ay ka qayb qaataan oo siyaasadda iyo nidaamka Soomaaliland uu gol yahay bal adoo isbarbar dhigaya dhaqankeennii sidee lagu dhiiri gelin karaa haweenka baad isleedahay anu haweenka waxaan ku dhiiri gelin karaa waan anaga hadda ku soo sheegayo hadiya jeer waxyaabo farbad baan go'taa waa customer iyo waa dumar iyo iminka waxa xasuustaa xitaa gabadhii brigade weyto maayarka ahayd anu aad baan ugu faraxsanaa oo micnaha waan daawanayay inaan Soomaaliyeed waliba Soomaaliland oo maayar noqoto ha meel dhan hogaaminaysay farxad weyn bay runtii dumar badan u ahayd oo wali wax garada marka waxa weeyaan waxaan anigu hubaa inay dumarka taageeraan oo inay dumarku iyaga laftooda hoos isku xidhigin way haday micnaha gabadhan hadda chance hesho tadabana chance bay helaysaa oo ayna oran iyagii baa isla balana dumar baa tahay ninka ma u deyso hadalkii waa dhici karta inay yiraahdaan sidoo kale raguna inay siiyaan fursad way ninku haduu fursad siiyo hawshii way dumarku ku dhiiri gelinayaan imba kale markaan anigu hadlayo haddana in qofkay daawanayo kale oonan isiinin taageero oonan ifraax si fiican bad hadlaysay hadhow waxa laga yaabaa inaan kalsoonidii galanto marka waxa weeyaan inuu qofkii kale oo ragii dumarkii iyaga laftooda taageeraan ifraax ali kareef waxaan u soo noqonayaa ifraax oo muddo ku dhow ilaa 15 sano haddaanay 20 ba gaarin wadankii 18 sano muddo ku dhow 20 sano wadankeeda hooyo ka maqnayd oo qurbaa ku noolayd oo siyaasadii wadanka ay ku noolayd ka qayb qaadatay maxaad door intee leeg baad ka qaadan kartaa siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland adoo la socda oo u dhigtaagay marxaladda Soomaaliland ay marayso maadaama aad u dhuun daloosho siyaasadda wadanka aad ku nooshahay walaala sidan hore horta aniga laba imka waxay la socdaa journalist bay la socdaa waqti aad u dheer bay ku qaadatay 18 May sanadka hore waraaq baan qoray oo u diray hadwanaag iyo ood weyne iyo Aynaba News waxa kaga hadlayay waxayna inanka aynu u baahanahay inaynu sameeyno anu firadeyda ka hadlayay runtii oo waxaanu lahayn inaan dhaqaaq wada farsameyno inay dadku micnaha wasiirada xitaa yimaadaan wadanada imika wax laga yaabo wasiir inuu tago Sweden in Stockholm loo kala fariisto Stockholm ayna wax yar loogu sameeyo hebel baa yimid caynkaasi laba qof inay sawir ka qaadaan inaguna hadana aynu istaawno taa lama baahna wasiirku waa inuu iska dhiga inuu yahay qof caadi ah waa inuu qof warjaaliyadaha meelaha ay ka dhisan yihiin waa inuu la soo hadlaa waa inuu la soo xiriiraa waa inuu qof walba yiraahdo imka 10 jaaliyadood ama 20 jaaliyadood haday meesha ka dhigan yihiin 5 kamid ah nitriga intiina kalena isku tago oo anoo hebelo oo wasiira ayaa inii imanaya walaan wada shaqeyn fiican wada yeelanay kaalaya qofkii yaraayay marka gudoomiyaha jaaliyada ka ahaa wuxuu dareemayaa in la qiimeeyay wuxuu kale oo dareemayaa in micnaha ay tahay wasiir dhani inuu micnaha u yeedhay ma garanaysaa marka wixii lagu xumeeyay horumarkii wadankooda in la eego laakiin haddaan dhacdo Stockholm ma fariisanaya afar TV oo Soomaalidu ay daawatana halkaas aan iska joojinaya waxba ma sameeyeen marka waxa fiican runtii medium kan anigu aan u soo yeeray waxaan ugu soo yeeray runtii xitaa Stockholm imka 18 May hadal baan ku leeyahay ka hadli doona waa lagu soo casuumadeeyay waana jecelahay inaan journalistayaasha Swedishkan casuumadeeno oo maalinta nationality ma garanaysaa maalinta 18 May maalintii ay xornimada qaadatay Soomaaliland ay tahay in la ogaado adduunka lagu ogaado ayaa runtii fiican marka siyaasaddan marka aynu u soo noqon markii imka wasiirkii oo kale marka wala arkaya imka in daragtii kale mooy jaraydkan ku noolaa imka ina bay gulaha Allah ifraxma maanta jaraydku waan ka akhristay wax weeyaan micnaha ummadii waxay noqotay waxda ku nool mediumkii marka haday micnaha hebel oo kala yimid imka aan dhahdo tusaalahan ka soo qaado Cabdiraxmaan Yuusuf Boobe ayaa yimid oo kale oo micnaha dhowr jila idoo kala gadisan oo loo kala laga qaadi jiray idadii waaweynaa حتى وحنا رأي ألا وهبل بقى ألا سومالي لا وسير بقى يمد أو هالكيمد اللي حتى أنت أنا كم قاعد بيناتهم وصنت لكن هذا يشدد ويسكت قتران أو إن درجتي كل ما يحلف ده هنا يتحلف ده لكم بيوتيوب كل كده يوتيوب يا ضاوضة إنكم بس ضاونا ده واحد فدي ستوكلا واحد فدي ينهبلايو واحد فدي معلا ده لندن وحنا كاسر سكولنا مركب وحنا وباهنا هاي إن نفرعونا كنت أدبن حكومة وهم قلينا يا حدا قبضتي ودنك
واي صوته أو حد مودا أرميه دبد إني سوء عليين واي حجر بدن بيسميين مصر وادي أي دويدين تجين السودان وادي جوجا إثيوبيا إنجليز كوكو شركة قيب قاتي إن معناها استوكهولم وكله إن قار برلمانان كيمدو حتى سعودي برلمان كان أو دور كمدي هاي runtii aad baan ugu faraxsanahay inay dhaqdhaqaaqa sii wadaan oo ina joojin ifraax ali kare waxa kale oo ku weydiinayaa waxa la yiri lama huran waa dalkaaga maadaama siyaasadii wadamada reer galbeedka ama Sweden aad muddo ku jirtay ma isleedahay ta wadankaagana ka qayb qaado runtii marka ka hadlo iminka haan maya laakiin laga yaabo waqtiyada soo socda iminka haan maya oo waxaan ahay arday sanadkii saddexaad jaamacadda dhigata waxaan aqoontan siyaasaddan ka leeyahay uma wada filna oo marka runtii siyaasadda dabka la galo waa ma golo deegaan soo gala ama baarlamaan gal inta kale waxa laga yaabaa inay iska tahay in wax badan aanad ka ogeyn marka taana runtii hadda bilow ay tahay marka iminka haan anigu laakiin wadankayga diyaar baan u ahay inaan caawiyo maanta أنا أتذكر كسوق قصي معناها سومال لأن يسوون تونا يوم صدران hooyaday iyo aabahay lama seexday mas'uul baan kaga jiraa labadu maraan bariyay oo kulaha kaale wadankayga wax ka soo qoran kaale wadankayga soo arka imika Alexander oo kala qaybta guddiga wax xiiseynaysayo wadankayga badantay inay waxba ka qorin baa laga yaabaa inantan raadiyo ka shaqeysa laakiin inantan aan oo kale diyaar bay u tahay xitaa inay madaxweynaha la kulantay wax ka qorto taas aniga ii farxada marka qof walo aadamiiba inuu waqtiga inta la arday baan hooy taxanaan qorin oo dugtay taxaamada imika inay dhow yihiin oo dibisha shanaad ay bilaamayso waan shaqeeyaa runtii turjuma ku shaqeeyaa qodbad jeediyaan ahayo waxaan ka hadlaa hadii jir xaqooda dumarka marka runtii hooyaan ahay howlo badan baa runtii isugaya in macnaha baan ka wada haddana waxaan waqtigaas oo dhan aan soo horay oo aan u soo sameeyay in waxay aniga kul unay tahay cilmi muxuu yiri ninkii jiray in وارمي سida waraka haro ama garanaysa wiila ka dhabeed laakiin hal waxaan taaganahay hadda macnaha wax ka hara oo at least inaan maanta aan wuxuu u qabto hadee imika maal ma gelin karo lacag ma siin karo Soomaaliland oo ma oran karo laakiin fikrad iyo waqti baan gali karaa fikradayda iyo waqtigeygina waxaan jeclahay inaan horo wax ka dhawaajisay in qorshe ay kugu jirto magaalada Hargeysa oo qolada saxafiyiinta marka tosto ee wadankaad ku noqoto بالميل هذا واحد كأبابوليسو مر دويدة شيكية دل مرتي أو دل الهرجيس كله يدينا قرشيان أرمها بالكورن. ولا لو هرت إن قلت فرنتي لو كا إن بدل ما قلت رشرين إسكول خسارة سمايو. عينا بالنيوز باي ورئيس تمر كان قلت الدجاج صبيري مركب ورئيسين. وحنو شيء إسكول بان بسيا. أنا مركب حبق عند كويلين. ولي يومو ضمانين هيكس كل يوم كنت رشرا. هذا أنت نقول شيء لبضن هبلود أوروبا نقول تشرنا أوروبا سيورنتي كهلا حقوق الدمركة حقوق الدمركة ما كان مشروعية عن الضلبناي مشروعية ده عن الضلبناي هذه مركه هيل كلام رنتي وحنو رنتي كر قارنا ونقاد وصارنا عدادسك إن الدمركة وليبا دبعتيسان إن الحقوق برنا سيدا مثلا دمرك دورسد أوكله دمرك بدني كسماء أوكله دمرك معناها الحياة كله أوكله بل دمرك معناها دبعتي سنة أي دفت كل على أوكله إنه نفنتي وحق قبنا أما حاجة أنا كدسنا وأنا كدسنا بيرتا راس ميل أي دم معناها أي دمرك واحد لقوا برا وإحنا لقسيو معناها حبرشة دتك هذه الشهر إن دكتي كل مويان إن تير مركشني لا تنشيت كارتر دكان كينو وحنا وانجوا ما نحوار دكان يا مركا يسلك كنا نسكوشي رينو شنتي إن معها إن قلني يبغى يقرأ لكن فرسمة كلا إن لا فرو أو حتى فرسمة ضاين وحلو قصين كرو أو كل وحنا نسكودينا إيش أنا بنحكي وحنا رجينا لكن إن صورة بدون إن إفراح ضد بدن أي دافع الدنيا كاد دعوني التلفزيون قرنك وحندوني ضد بدن الصومالية أو ودن كي يمدوا جدا بيسي بل إن ودن كودا تصور كسيستم دامع مركز مدارك السود دكتي وحياة بدن كويس تيمين ويسبدل السياسة فرين وقدر كرتايجا أرترنتي بركة مدارك السود دقيقة واحد قياس كلا أرترنتي مجرته هو واحد دريم يي دي أنا بدي بسكوت علينا أنا ملينا يا معناها الموضوع حيسو تحتاجنا يدنا معناها فرحة بدن بيسي إن تذكر واحد يموتين فرحة ترى بدن إن سفي عم بالي يسود وياي إن مركا رنتي ودن كينو كلي مركا كهالله تيدا أنا كهذا أنا كهالله ضد قرب شوكته ودن كينو قفل بوباين طبعا كورونا ما تاعي شدان وحوين بيض بدن وتهاي إن مركا رنتي وحنا نقول تري لها
qof walba inuu macnaha jaaniska uu haysto ka faa'iideysto way imika dadkayga qurba joogta jaanis fara badan haysanaa hadday noqonayso siyaasad hadday noqonayso inaan mashruucyo ku biirno hadday noqonayso inaan wada xisbiye kala gedisan daano aan ku biirno hadday noqonayso inaan fikrada la nimaadno oo sidan oo kale de hablahan siyaasi ma aha ee aanu babriyay kala wadanka Soomaaliland ma soo aragtay bal kala waa soo arki doontaa wala inuu soo dhaweyn doonay maalin bal oo sawir cusub u dirayo Facebook ugu dirayo aanu da saaxiibkayn waxa weeyaan marka waxa ay noqotay inay hadhow inay imka sameeyaan xiriir fiican inay ka sameeyaan Soomaaliland oo waxa aragtay in dad badan ay u iftiiminayaan maanta waxa wareysanayay qolay inaga tirsan ma wareysan laakiin yara wada sheekaystaan qolayda inaga tirsan waxa uu sheegay Soomaaliland marka Soomaaliland ba inuu yahay wadan saa u qurux badan oo dad wanaagsan ay degan yihiin runtii waxay noqotay wax farxad ay qaataan oo ay hadhowto la ka sheekayn doonaan muddo ifraax cali kariix waxaan ku weydiinayaa dhalinyaro fara badan oo jaamacadaha Soomaaliland ka baxay ayaa inta badan u haqaltaaga inay sidiina qurbi joog noqdaan marka iyaga talooyin aad siinaysaa ma jirtaa maadaama aad xooggaal u noqotay duruufaha ku xiran qurbaha runtii markaan ka hadlo markaan anigu jaamacadan ka baxay waxaan sugayaa rajo badan inaan shaqo heli doono macluumaad baan ahay oo kale macallinimadayda waxaan doonayaa inaan ku helo shaqadeedii qof dhan 4 sanadood ama 5 sanadood jaamacad soo dhiganayay oo sugaya macnaha hadda aleelaha gashay academic macna life ayaad hadda gashay oo hadhow toona shaqo la'aan ku dhacdo nolosha uu naqayo qaar waxay taystadlala marka runtii taa waxaan macnaha warka yara siinayaa iyaga oo aan dhiiri gelin doono kulli aan hadalada qaaran ka oran doono dhalinyarada jaamacadda dhigata raggan macnaha aqoon-yahanka ee malqabeenka bal in at least wax furaan oo ay kan jaamiciga ah ay ka horeysiyaan ka reehibala waa in daragtii kale hadda wajibeen isku shaqeynaa marka macnaha waxa weeyaan inaan taa laga dhigin marka hore la galiyo meelahan imika aynu wax ku haysano oo dhan qofka jaamiciga oo niyada loo dhiso ilmaha yar inayna ka dhicin waa imika qofku markuu 30 sano u dhaafo uu iska control karaa laakiin ilmaha yar intuu 5 ilaa 10 ka hooseeyo haduu wuxuu hiigsanayo oo waayo inuu istaldalaaba macnaha wax yar u jirta marka dhalinyaradan kalena waxa aan macnaha aan kula talin lahaayay tahriibaysa ee naftooda u horeysa waxaad haysataan wax aad u qiimo badan fura waxaad haysataan albaabka ku furi kartaan waa cilmiga oo qofku cilmigiisa haduu haysto wax badan buu haystaa laakiin waa inay u samraan wadankoogana ay hirgeliyaan sidii ay u noqon lahaayeen waayaga mustaqbalkii wadanka oo maamuli lahaa imka odayaashan imka deegaanka xitaa fadhiyaan inay barka dareeraan iyaga siiyaan ba fiican bilowta ka laga hadlayo macnaha dadku isku jirjiraan oo macnaha dadkan ciyaalkan aan la niyajibinaan la oran intuu 40 gaarayo qofkan hala sugo ama dhowr iyo 30 intuu gaarayo macnaha qof ilaa 28 ilaa 29 xitaa jira inuu soo gaari karo meeshii oo macnaha caruurta yar yar niyadooda loo dhiso oo la arko inay yihiin dad wax bartay oo cilmi leh taas aan aad iyo aad mahadsantahay xildhibaan ifraax cali kariix oo muwaadiniinta reer Soomaaliland balse ka tirsan golaha deegaanka ee wadanka Sweden waxaan uga mahadnaqaynaa qadarkeeda waqtigeeda qaaliga ay noo hurtay ee aqoonteeda iyo waayo aragnimadeeda iyo fikradaha horumarineed ee ku aadan wadankeeda hooyo ay bulshada Soomaaliland daafaha dunida iyo kuwa dalka joogaba halkan ay xog kala duwan ka siisay ifraax aad baan kugu mahadnaqaynaa barnaamijka waayaha qurbaha toddobaadka intaas aynu kusoo gabagabeynaa tan intaanu mid kan la mid ah ku kulmi doono waxay igala qayb qaateen Nimcaan Axmed Dagaal iyo Maxamed Caqli Hadi dhamaantiin waxaad ku dhaafaysaa anigoo Cabdi Almise dhamaantiin waxaad ku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh لما تجان معها طليق عرف يا مديدا اسميو ملحيو كلونكا عوديو بيدا كوعانا سوماليلان بيدي معها الليو لما تجان معها طليق عرف يا مديدا اسميو ملحيو كلونكا عوديو بيدا كوعانا فليه يتندهب كوتشي